marka hadda tusaale ahaan haddii aan dhaho nin hawiyaan ahay oo hiraaba oo mudulooda oo abgaala oo waceesra haddii aan dhaho ma dembiyaan galay mase dadaan ku culaadiyey litacaarifuu la taaganahay marka wasiiro goormee qalad noqotay ilan Soomaaliya haddii laga bixi lahaa 4.5ka oo qof jariira oo Soomaali madaxweyne ka noqon karo oo ii sheeg qofki jigjiga joogo ande Hargeysa joogo oo nin hawiya oo maayar looga dhigo xilligaas hadii la gaaray qabyaalad qofka hadasha waaba qaladba laakiin justiga la taagan yahay qofka li tacaarif hadii nin daaro wada tahay nin mareexaana tahay jaahadaati markuu dhahay astaanta waxaan joogaa mareexaanka waxaa la soo booday isla markaa adreeska waa la yaqaan jid mareexaan waay aad weyn ya saki maxay ku kala duwan yihiin marka ilaan isla markii astaantii aa sheegtay jid mareexaan ku soo waayahay garaadka hadalkiisa mid ka qabanaya mudgal garaa hadii ma adkayslaantu waxay tahay mudgal ha soo qarqarina mudgal garaadka hadalkiisa waa ku qaadanaya uu lahaa Muniir waa baby ma fahant Muniir TikTok waxa kaga xiran 600,000 YouTube waxa kaga xiran 500,000 Instagram waxa kaga xiran 500,000 macnaha aaladiisa marka la isku keeno almost 2 milyan dad ku dhow ku xiran garaadka aaladiisa marka la isku keeno waa TikTok 20,000 iyo Facebook 10,000 waa 30 Instagram ma balaha 30,000 baa ku xiran waad caayisa no adkayso hadhow baa ka jawaabi doontaa wardada kan aan meega kuleelka aan hiidka maya joogta Facebook iyo 10 kuna dhii wad ka jawaabaysaa okay ii sheeg numberka ii sheeg meeqa way ii sheeg ku soo daawo garaadka soo ku qorinta ku xun ada arkaya garaadka soo aniga 10,000 baan ku hayaa ka bax 20 baan kaaga dhigay 20 iyo 20 baan ku maya 5,000 iga dhigo ku soco wado haye okay mudgal 40,000 baa ku xiran garaad in adeer qofka babyga waxa social media wax qofka baby ka ah qofka 40,000 ku xiran tahay iyo qofka 2 milyan balaatoonidiisa ku xiran yihiin horta shacabkaasna daawanaya noo jawaabaya qofka social media baby ka ah markan 40,000 ku xiran yihiin baa baby ka ah oo mataqaana langaab ka ah mise kan 2 milyan ay ku xiran yihiin taas commenting-aan u daayay ama 40,000 soo qor ama 2 milyan soo qor waxaan u gudbiyaa karbaash waa runta in adeer nin hawiye ah hiraaba mudulooda beelweyntii waxa ku yiri abgaal Cusmaana baa tahay ilaah baa ka dhigay waa u dhalasho iskuma diidana 4.5 waa hal xaq maaha maalikii la dooranayay shirka carta baa laga dhawaaqo leeyahay waa hal xaq maaha nin jareera markuu madaxweyne Soomaaliya ka noqdaa leeyahay nin jareer madaxweyne haduu noqon karaa lacagtiisa ka xigta iyo baarlamaanka la gadanayo in loo taqaana uu gato one man hadii tagtana waa dadku ugu badanba oo way noqon karaan madaxweyne noqon karaan ma fahanti marka dadkan jareerta karbaasho dhiiqan lagu ku gelinayo ugu qaado dadkan beelweynta jareer weyn aad u gafay su'aaladeeda madaxweyne ma noqon karaan karbaash ku jira karbaash hiidkii ma gaarayay wasiir dhageyso hadalka arrin kala adkaysta mid kala ay ku socay marka ilaahay waa sax aniga markii si sax ah aan kula hadlo social media aniga qof wuxuu ku joogaa ma fahanti hadii dadku ay reaction inay wada bixiyaan xigmad ma aha qaar waa inay reaction bixiyaan qaar waa inay sports ka sheekeeyaan qaar waa inay qadiyad ka sheekeeyaan qaar waa inay siyaasad ka sheekeeyaan barnaamijkina waa ku ixtiraamayaan barnaamijkina waa hawshina wata maanta waa ku qadeysaan oo TikTok kaga qadeysaan sharaf iyo karaama ku leedihiin kaliya waxaad iska ilaalisaan inaad qabiilka u gaftaan qabiilkiina difaacda sharafkiina ka sheekeey amaana waxaan ku ruux qabadka mudulood inta jawaano soo maray inta madaxweyne soo maray mudgal waa ku finaya ma Muniira isdeji laba ku hadasheen Muniira team qabyaalad maxaa dhacay macquul ma team qabyaalad macquul ay wasiir ku sheego macquul ma laba nin way ku dhamaatay wasiir marka aan kaaga jawaabo dad ilii tolkiina ma ahan hadda 40,000 uu garaadka heestay tolkiisa ma ana ogaad ma fiir Muniir waxa laga wadaa mid ana hadda kule ana joog Muniir garaad hal marisu ayo ku rag hadalkayga kulle ani hadalkayga kulle maya warkiisa walaalayo
labadiina hal sakiya idin waalay kala hela garaadku belo ku tagtay waaya hadalba garaad qaado dee اوكي انا قادنيا qabyaalad waa wareertay muuda wada gasheen maxaa ku dhacay qabyaalad سكيو ادوكو وحي horta qofku xiran ba rag waxa jir qaarna ma isticmaalaan qaar midiiba bad ka saartay laakiin waxaan ku sheegayaa Skiyo adduunku qabyaalaha la isku dhac nin kasta media adu nin mareexaan tahay mareexaan media waxa uu joogay dabacsan meelaha isku warada ganacsada xoogaa iskale uu ka dhacay ninka labaad ee maanta la yaqaanay soo labeeyay waliba aad qabiilkaaga macalku ma faantay inta yara ku taqaano umba ku yaqaana laakiin ta marka laga tago nin kasta media qabiilkiisa anu Facebook qabiilkay hadda ku sheegay qabiilkaygaan u joogaa YouTube qabiilkayga u joogaa TikTok qabiilkayga u joogaa inta marka laga yimaado boqolku dadka igu xiran waa boqol inta kala bad Soomaali qabiilkayga maaha inta aniga igu xiran laakiin Soomaalida kala badan iyo qabiilkayga markay noqoto laakiin nin kasta waxa weeye xaniyiisa inuu meel kasta la soo fariisto garaaduna dar hadalkaaga meel fog inuu gaarayo hadalkayga meel fog u gaaraya 40 milyan ku xirnaato fiiri garaad waxa u raacaysaa 40 milyan ama 50 milyan ku xirnaato qofkaas laakiin garaadka hadalkiisa inuu ku kulliya oo shay hadalkaygu anu meesha reaction maalin hore marna ku sheegay reaction looguma baara hal siyaasi aan ku soo dhagaa hal mar soo ay garaad maadiyo okay bal meesha halkaas dhag okay adiga laakiin ma YouTube baad weligaa saarnaan YouTube baad reaction kaliya waad ka bixiysaa sababta qof wuxuu ku soo hadlay baad ana maanta soo hadlay reaction baad taabanaysa waa inta wacab laakiin Skiyo dadka soo kala baro hadalladaadu YouTube iyo ma dhaafaan iyaal YouTuberna ma dhaafaan munir baa biri soo heesaya reaction ma ka soo bixinaysa laakiin anagu reaction ma bixinay siyaasi wuxuu yahay baan banaanka keenaa sirihiisaan soo fagnaa taasaaro anagu hadalkaygu bilo siyaasi to Saki bin Abdi Free marka abti iska balbalaarka iyo ciyaalkayga iyo ka soo bixi reaction wala ka bax qabiilka ha noolaa ku soo ma Saki hadal kale uma arsano Saki ka soo bax su'aalaha lagu weydiiyay ka jawaab to Saki bin Abdi Free الله أتكست مود قلا الله أتكست Saki bin Abdi dareemay horta من غبيات أنا إنسان مود سيد شرفت لا مود وجري عرر مود هلو horta على المسؤول waxa ku weydiiyaa Saki dareemay أنا هذا كي وبلابا وقت هذا لا قادتين مود يقل laba qaadatay waa garaadka kula qaatay ku soco wariya ilaahay qabar mud gal gariirine kuma soo socday maxaa la gariiraya war ha gariirina kiligeyga waa gariirin beeri Sakiyo anin gariirin inaan ahayn adaa ka marqaatiyaa waqtiga ha ila garaad ninkan mud iga galay waqtiga ha ila qaybsanaa ku jawaabay waayahay mid baa isla fahmi laanahay war dhalan yaro kaliya waxaan iri inaan anigu nin mareexaan inaan ahay inaan nin daarood ahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa taqaan inta idaawato maanta commentiga hadii loo Saki waa qabiilkay waa la yaqaanaa bitaarafu hadii tahay anigoo afkayga aan ka sheegina la wada ogyahay Soomaali waa in istaqaan laakiin si inaad waxa la isdheer yahay aniga maantay ninka ogaadeenka ah ninka habargidir beesha cayr habargidir gaar ahaan cayra ninka raxweynta ah ninka dhulbaantaha ah markuu idaawanayo confidence uu igu dareemaya deganaan macnaha in aan weligiis qabiilkiis aflagaadeen u gafin caayin kaliya waxa aan idin dheeraha waxay tahay war anigu ummadda Soomaaliyeed waan ixtiraamaa qabiil hadii noqotana qabiilkan ka dhashay waa la yaqaanaa laas qabiil kale ma ijaafeeyo war dhalinyaro inaad dhulbaante iyo abgaal u kala hadashaan oo difaacdaan oo maalinka lagu soo xadgudbo sharafkooda aad ilaalisaan idinma diidin qadiyada qabiilkiina ku hadlo difaac bal yaa ilaahay hadalku ma saarna ilma riyaalo qabiilkiina hadaa difaacanaysa kama dhigin inaad qabiil kale u gaftaan oo dad sheekh iyo shariif iyo wadaad iyo caalim iyo muallim baleh inaad u gaftaan idin kama qabato ummadda Soomaaliyeed hooyo gurigeeda joogto waxaan jeerin intii maanta iska qasti ciyaalkeeda sixsataad ijaafeenaysan reer hebel waa qodob kale wuxuu yahay waxa tiri siyaasiga maanta ku soo dhigaya soo wacay warniyo siyaasi maanta wadanka Soomaaliya waa wadamada ugu liita dunida halka wax dhigan waa siyaasigood maanta wadanka Soomaaliya waa wadamada ugu abaarta ee gaajada badan adduunka halka wax dhigan waa siyaasigood maanta Soomaaliya waa wadanka ugu baasaboorka liita dunida hal wadan baa ka liita amreynaya
musuq maasuqa caalamka markaa ku qorto google number 1 Soomaaliya soo baxaysa wadamada ugu qatarsan ee dhaajarka ee dunida aan lagu noolaan karin ee dalxiisayaasha karooska ka saaran maanta ninka ingiriiska markuu dalxiis aadayo hadduu dalxiis Soomaaliya u aadayo dowladda u yeeraysa wasaaradda arrimaha dalxiiska u yeeray waxa leeyahay maxaa Soomaaliya ka doonaysaa meel la isku aamini kara ma wadan noocaas marka siyaasigiisa aduu qiimo kula leeyahay niyow aniga maanta siyaasigaygu hadduu maanta iga dhigi lahaa baasaboorkayga aan dunida ku mari lahaa aan wadankayga gaari ku dhex wadan lahaa jaamacadda aan wadankayga ka baalkaysan lahaa ka dhex shaqaysan lahaa siyaasigaygu micnu u yeelan lahaa waa siyaasi natiijo ii keenay laakiin siyaasi inaad calooshiisa waxaan ka fikirin horta inaad aduu qiimo kula leeyahay waana siyaasiga maalinkii xil loo magacaabo ubadkiisa intuu wadan ka wada kaxeeyo wadan kale ku shuba kaasi aduu qiimo kula leeyahay aniga waxa iga qiimo badan nin dhalinyaro ah nin wax bartay oo maanta hindiya jaamacad ka dhigta ama ka qalin jibiyay markaan isku imaano inuu si sharaf leh la cadeyn isagoo qabiilku doonaa ii soo dhaweynayo ilaahay Saki bin Xaaji mas'uul sare ii soo fariiso magaaladii allaale iyo magaaladii Soomaali ay degto aan ka degana guri allaale gurigii Soomaalida intaan gargaraacaan habeenkaas waxaan ku gamayaa hurdo raaxo leh waayo dakana ma qabo cid biyo kul lama soo kor istaagayso cid mid ku lama soo dul istaagayso idinkuna magaalada markaad maraysaan baareeraha fiirisaan hareeraha geesaha iska fiirisaan iyo ama gadaal idinka yimaada dhalada madaxna idinka jibiya nolosha noocaas aad ku nooshiin nolol waxa ku noolishiin security ah is ilaalin ah naftii bacaha markay shanqaraan waa boodaan in la idin soo weerara u maleynaysaan niyo dadkaas aatiin marka war anigu inaad qabiilkiina inaad difaacataan waa idin ku taageersanahay hadalkiisu idin laba dhicin laakiin ilma adeeryaal qabiil kale Soomaaliyeed ijaaf iyo cay idin kama geeyay okay wasiir khudbadaada waa nabadgeliya daqiiqadaada way dhamaatay mudgal marka xajiso garaad ka soo bax toobadan adaa la qaado ninka sharka ku soo toobadan adaa la qaado kaalay kirmada show caadi ma fahmay macnaha ushwan suuqa ay dhiibay salaam ya caawadan macnaha جوكي سكيو نفتركايga maanta markaa qudbeynaysa daqiiqadii u dambeysay hadda maxaa raaxaysay usha waan isku kee dhiibayso maaha qabiil soo kuma aadayso markaa maya wixii kaftan maya war aniga kuma warniyo ya war muniiro ninka ma iga qabatid caaw war waxaan ku inaad qabiilkaaga haddaan ku leeyahay fiiri meesha ma saarana war beelweynta mudulood maya iyo beelweynta hiraab idhigeeso beelweynta hiraab iyo beelweynta mudulood iyo beelweynta abgaal iyo beelweynta wacaysle iyo weliba macallin diblaawe aan hoos kula degay sharaf iyo karaami in adeer leeyihiin maya qabiil fiiri sakiyo balday aniga kulay qabo igu mayso aniga beelweynta inaan dhaho sharaf iyo karaamo ku noolaada kulay qabo igu mayso شكله هل سؤال هدي ما أنت السياسة اللي قلنا أنا كمان دين قبيل بنعينا أنا شخصي ولا هدي ما أنت السياسة اللي قلنا ما يرسوك سؤال ما قبيل فعلا ما تكون خلدني أنا قبيل شرف لما عينه لكن السياسة ولا قلنا تاوجو قرادو سؤالك اوكي قراد كلفتي بو كقاعد تيم قبيالي وتيم سياسي بو نقدي كربا الشبوك هذه كربا شوضه بحال قراد سؤالك ويدينا صف وجهك هناك صف انا انا soo saara ana kaga soo saara ila fadhi ninka su'aala weydiiyay garaado hal su'aal ku weydiina meel ina soo fadhiisatay qabiil Soomaaliyeed ma aflagaadiisi ما يعني قبيل الصومالي ما أفلقادين لك سياسي قبيل كسر سياسي وأفلقادين كرتا ودليلي كرتا وحضر شيء كرتا وحرت عليه كرتا سمو لكن فيري سكي وحكوك شرعيينو يا إنا قبيل الصوماليين أفلقادين مركور باش ميل كلا لقى توري بالشوك هذا دبور ومساعد زول عادي بالشوك إنا أفلقادين سي أو وقفتي بلا كلا سكي مودقل إلهي وأفلقادينيين سكي مودقل هذا السربابتا فيري هذا السربابتا كسعو قرد هل سؤال بكويديني حاسس سوما حتى معها مدعونا ومد سوماليين سومالي مدعونا معها حدي ما أنت أشكر بشو أما أنك الله ما قبيل بنا فلقاتي مساعد شيخ بنا فلقاتي هو سؤال شخصية معارضة أوكي أنا جا شخصي حل هيا والمعارضة لكن قبيل شيخي شريف لي الله قبل يومين المعارضة تيك توك وان ولا شوقنا
nin kasta xawga anoo hawiye أنا ولي caaya كوكو ama مارك qabiil kale oo caaya miyaad aragto waa maya ولي inaadeer كوما qabiil waa qabiil shaqsi waa la aflaydaa taariikhdiisa laga sheegay taariikh baa laga sheegay laakiin waxaa inaadeer jira inay siyaasi lagu dhego aniga 99% waxaan ku dhego waa shaqsi laakiin qabiil shaqi sharif leh ma caayo hadduu macal qabiilkayga la soo caayo qabiilkayga oo dhan uma qaado laakiin siyaasi waan ku soo